Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Caruurey, sheeko cusub ayaan baranaynaa maanta. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa eygii dhuuniga ahaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa ey dhuuni ah ayaa wuxuu marayay waddada. Kadib ayaa dhulka wuxuu ka helay laf dhulka taalay. Markaas ayuu laftii soo qaatay si uu u cuno. Eygii asagoo gurigiis u socda ayaa wuxuu soo dulmaray buundo webiga dul saarnayd. Sababtoo ah wuxuu deganaa dhanka kale ee magaalada oo waxay ahayd buundada in laga gudbo markii gurigiisa uu laabanayo. Intii uu sii goynayay buundada ayaa hal mar wuxuu hoos u fiiriyay webigii hoos marayay buundada hoosteeda. Wuxuuna arkay ey kale oo afka ku sita laf weyn. Laakiin sida runta ah waxa uu arkay ayaa wuxuu ahaa humaagiisa ay ma ahayn ey kale oo laf wata. Eygan oo ahaa ey dhuuni ah hal mar ayuu afkiisa kala furtay asagoo qaylinaya oo raba eyga kale oo uu arkay in uu ka xoogo laftii afka ugu jirtay. Markaas ayaa waxaa dhacday in laftii ay ugu dhacdo webigii. Eygii sidaas ayuuna ku waayay laftiisa. Caruurey, cashirka sheekadan aan ka baran ayaa waxay tahay in dhuuninimada lagu qasaaro oo qofka haddii waxa uu haysto uu ku qanci waayo oo mar walba uu hanqal taago dadka kale waxa ay haystaan in marka dambe waxay asaga uu haystay inuu lumin doono oo khasaaro gali doono. Caruurey, sheekadan halkan ay noogu eg tahay ilaa inta mar dambe sheeko aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.